halkani waa dekedda magaalada Saylac. Waxa laga yaabaa barihii ugu dambeysay in dhagaha ku soo noqnoqonayeen. Saylac waxa rabtay inay qaadato dawladda Itoobiya. Waana hadalhayntii ugu badnaa ee isbuucan dadkoo dhani ay maqlayeen. Inkastoo Soomaali tira badan ay ka xanaajisay, Itoobiya ayaa idinka rabtaa meel ka mid ah dhulkiina. Saylac waa goob taariikhi ah oo Soomaalida xuduntooda ah. Ma ogtahay halkan inay tahay goobtii ay ka soo degtay diinteena Islaamku. Waa goor intaanay gaadhin magaalada Madiina. Waa diinteena oo ku cusub magaalada Makka oo dadku ay la dhuuntaan. Ayaa Nabiyullah Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee asxaabada qayb ka mid ah waxa uu soo diray magaalada Saylac si diinta loo gaarsiiyo geeska Afrika. Waa magaalo taariikhi ah oo runtii Soomaalidu ay ku faanto. waana goobtii uu ka soo degay Ibn Battuta, waa ninkii badmaaxa ahaa ee buuggiisa ku qoray in Saylac ay ahayd magaaladii ugu weyneyd intii uu marayay adduunka. Waxaana uu sheegay inay ahayd goob aad u weyn oo ay ku yaalaan dabaqyo aad u dhaadheer, casri ah, dadka oo dhan ay ka ganacsan jireen. Waxaana uu sheegay goobtan inay deganaayeen dadyow aad u tiro badan oo carab u badnaa. Saylac waxaa soo maray dagaalo kala duwan oo Itoobiya ay doonaysay inay ku qaadato, laakiin geesiyaashii Soomaalida ayaa dhexda u xidhay inay ka difaacaan magaalada Saylac. Goobtani waa halkii uu ka dagaalamayay Axmed Gurey, waana goobtii ay ka jirtay boqortooyadii Adal. Boqortooyadaas waxay ku abtirsan jirtay boqortooyadii uu ka tegay Nabiyullah Suleymaan calayhi salaam. Waxaad dareemaysaa awoodda ay ku lahayd geeska Afrika, dunida, iyo meelo tiro badan oo taariikhi ah. Waxaynu oran karnaa maanta waxaynu ku sugannahay magaalada ugu qadiimsan dunida. Haddaanay ahayn ta koowaad, waa ta labaad. Magaalada taariikhda leh waxaad dayacday Soomaalida. Waxaad arkaysaa maanta noocay u eg tahay. Dayacaadda ka muuqata waa takaliftay in Itoobiya ay danayso oo weliba ay tiraahdo badda anaga ayaa doonaynaa. Ma rabto inay kiraysato oo ma haysato lacagtii ay ku kiraysan lahayd. Mana rabto inay maal gashato oo ma haysato malaayiin dollar oo ay iyadu iska leedahay. Laakiin Itoobiya waxay doonaysaa dhul ay iska qaadato oo cid aanay kula hadal. Siday aaminsan tahayna waxayba tiraahdaa Saylac iyo qaybo fara badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida annaga ayaa iska lahayn, maantana dib loo noqonaynaa.